gobolka bariga dhexe xaalkiisu caawa waa bariga dhexe. Trump waxa uu qaadayaa mid ka mid ah tillaabooyinkii ka dhanka ahaa waddanka Iran ee uu ballan qaaday, waxaana uu go'doomiyey inta badan xeebaha iyo waliba dekedaha kala duwan ee dowladda Iran ay wax ka soo dhoofsato isla markaana ay ka dhoofiso ee waddankeeda. maraakiib dagaal ayaa lagu arkay xeebaha ku dhow waddanka Iran iyo waliba gacanka Carabta iyadoo halkaasi ciidamada Mareykanka ay ku soo dhawaanayaan. taliska militariga ee dalka Iran waaxda isku duwidda dagaalka ayaa goor dhow hadashay, waxaana ay tilmaameen inay qaadi doonaan tillaabooyin degdeg ah. marka la fiiriyo Israel iyadoo qoray dable ayay wadaa oo meel kasta waxay doonaysaa inay ku qabato, waxaana ay ku dhawaaqaysaa in ciidamadeedana diyaarisay Mareykankuna ay ku garab istaagayaan arrintan. Shiinaha waxa uu qaatay mowqif ku aadan dagaalkan. Trump ayaase oranaya dunidu waxa ay raadinaysaa nabad, inana waxaan rabnaa nabad, laakiin Iran waxay rabtaa hubka nuclear-ka. haddaba sidee arrintan xal looga gaari karaa? maxay yihiin caawa dadaalada diblomaasiyadeed ee socda? maxaase ka aloosan Turkiga iyo waliba Israel dhexdeeda? hadal yaab leh ayuu sii daayay aqalka madaxtooyada ee Ankara xilli maanta wasiirka amuraha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan uu ku dhawaaqay in marka laga yimaado Iran, Israel cadowgeeda ay u aragto dowladda Turkiga mustaqbalkana aan laga maarmi doonin in la iswajaho. madhaba Erdogan maanta inuu yiri waxaan qabsan doonaa dhulka Falastiiniyiinta oo dib ayaan xorriyadeedii u soo celinaya. dagaalkii Lebanon kama marna. qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa khiyaaray. ku soo dhawaada YouTube kana subscribe saara, share gareeya muuqaalkan saaxiibadeen la wadaaga. waa 13 bishii April sanadku waa 2026. ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonaysa inaad lacag dibadda u dirto? ma ka walwashay in lacagtu waqtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga? ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi? Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha. waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada. waa adeeg fudud, degdeg ah, ammaan ah, khidmadiisuna ay jaban tahay. Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah, meel kasta oo ay joogaan, goor kasta oo ay u baahan yihiin. booqo barteenna www.safariremit.com. Safari Remit, lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare. gobolka bariga dhexe waxay u muuqataa in ay ka sii gudbayso meeshii deganaashiyaha ahaa, isla markaana saacaddu ay u sii wareegayso dhinaca dagaalka. marka la eego madaxweyne Donald Trump ayaa goor dhoweyd waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay in lagu dhaqaaqo arrintii go'doominta, iyadoo qaybo ka mid ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee dowladda Mareykanka loo diray aagga dalka Iran si ay u xanibaan guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada. Trump waxa uu leeyahay wixii caawa ka dambeeya ma jiro Iran ganacsi sahay ah oo ay dirayso amaba ha yaraadaan kuwa ay soo qaadanayso oo ay dunida ka keenayaan. dagaalku ma socda ayuu leeyahay, sidoo kale waxaa la guda galay xanibaadda dhaqaalaha, taasoo wax walba uga daran dowladda Iran. arrintani waxay ku soo aadaysaa iyadoo oo ay iminka u muuqato guud ahaanba gobolka bariga dhexe in xiisadiisu ay si weyn u saameyn doonto guud ahaanba dunida. ilaa iyo 40 waddan ayuu leeyahay Trump waxay ka qayb qaadan doonaan arrinta xal u helidda marinka Hormuz. 48 saac ee ugu dambeeyay 35 doonyood ayaa maray halkaasi iyo maraakiib kala duwan oo sahay waday marinka loo yaqaano Madiq Hormuz, sida ay qubaradu iminka qeexayaanba. hase haatee Trump wali waxa uu ku adkaysanayaa in heshiisa laga gaaro gobolka bariga dhexe, gaar ahaan wada hadal ay la galaan dowladda Iran, uusan marnaba diidanayn marka la eego dadaalada soconaya iyo waliba rabitaanka labada dhinac. wadankaygu ma diidayo in wax wada hadala la galo. waxaan diyaar u nahay in dhammaan culeysyada taagan lagu gabagabeeyo miiska wada xaajoodka, laakiin ma ogolin buu yiri dowladda Iran in ay hesho hubka nuclear-ka. taasina waa midda kaliya ee dhinacyadu ay isku jeerayaan, sida uu Trump u sheegay isagoo aqalka cad joogay oo ay wariyaashu su'aalo weydiinayeen.
dhinaca kale Trump waxa uu qeexay in dowladda ay ka mid yihiin Shiinaha ay iminka door bidayaan in xal laga gaaro dagaalka sii xoogaysanaya. madaxweyne Xi waxa uu doonayaa dagaalka in la soo gabagabeeyo ayuu Trump u sheegay wariyaasha, taas oo markii ugu horeysay Trump uu soo bandhigay mowqifka wadamada Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka dagaalkan ee gobolka Bariga Dhexe. isagoo wariyaasha hortooda ku faanay, Trump waxa uu sidoo kale yiri aniga marinkan Hormuz la yiraahdo ma jiraan wax eega xayiran, mana doonayo in aan isticmaalo guud ahaantiiba. sidoo kale ma jiri doonto buu yiri dowlad dunida oo dhan afduubanaysa iyadoo kaarka cadaadiska ka dhigaysa buu yiri marinkan Hormuz waa Iiraan oo uu si dadban warbaahinta horteeda uga qaaday. mar wax laga weydiiyay shidaalkaasi kacaya ee adduunka ee qaaliyoobaya iyo saameynta wadankiisa uu ku leeyahay, waxa uu Trump yiri aniga shidaal baahideena ka badan ayaan haysanaa haddii aan Mareykan nahay. sidoo kale maraakiibta shidaalka xambaare ee booyadaha ayaa ku soo jeeda buu yiri hadda wadankan si ay dhaqaalo amaba shidaal uga qaadaan isla markaana ay u geeyaan buu yiri ciidamadeena halkaasi jooga. waa Trump sida uu hadalka u dhigay. waa doodii ugu cuslayd uu maanta jeediyo tan iyo markii xiisadan ay sii xoogaysatay gobolka Bariga Dhexe ka aloosan ee u dhaxaysa labada dhinac, sida Trump uu hadalkiisa ka muuqanaysa. haddii aan isla wararka gobolka Bariga Dhexe eego iyo waliba meeshay iminka wax marayaan, dowladda Iiraan ayaa markii ugu horeysay si la yaab leh uga jawaabtay eedeymaha ka imanaya wadanka Mareykanka iyo madaxweyne Donald Trump. afhayeen u hadlay taliska dhexe ee militariga dowladda ahna barta isku dawada dagaalka ee loo yaqaan Khatamul Anbiya oo lagu magacaabo Dulfaqaari ayaa waxa uu yiri ciidamada dalka Iiraan mar walba waxay diyaar u yihiin dagaalka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay galaan haddii dhinacyada cadowgu ay isku dayaan inay soo hajoomaan jiritaankeena iyo waliba dowladeenu sida madax banaanideeda loo badbaadin karayo. waxa uu sidoo kale sheegay generaalkaasi hadlay ee dowladda Iiraan u hadlay, waxa uu yiri wali awoodeeni ugu dambeysay lama soo bandhigin. dhinacyada hadda isbuurbuurayana waxay la kulmi doonaan buu yiri dhibaato ka baaxad weyn midda hadda taagan oo ay filanayaanba in dalka Iiraan ay kala kulmaan haddii weerar la inagu soo qaado buu yiri isagoo wariyaasha la hadlayay. dhinaca Israa'iilna iyada qoray dabla ayay wadaa oo meeshii dhibaato laga soo sheegaba oo Bariga Dhexe waxay rabtaa xiisada inay sii ololiso. ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa wariyaasha u sheegay in uu diyaar u yahay in dowladda Mareykanka ay gacan ka siisa Israa'iil go'doominta caawa bilaabatay ee ka dhanka ah wadanka Iiraan, taas oo uu ku tilmaamay in ay diyaar u yihiin ciidamadiisa inay tallaabooyinkaasi qayb ka noqdaan. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa tilmaamay in dalkiisa uu si buuxda u taageerayo xayiraadda badeed ee ciidamada Mareykanku ay ku soo rogayaan Iiraan, isagoo carabka ku adkeeyay in ay jiraan isku dawad iyo taageero labada dhinac waa Mareykanka iyo Iiraan oo Israa'iil. Netanyahu ayaa hadalkan ka jeediyay bilowga kulan toddobaadle ah oo golahiisa wasiirada la yeeshay, isaga oo hadlaya wuxuu yiri iyadoo Iiraan ay jabisay xeerarkii kala duwanaa, madaxweyne Donald Trump waxa uu go'aansaday in lagu soo rogo xayiraad badeed. dabcan waan taageersanahay mowqifkan adag, waxa aan si joogto ah uga shaqaynaynaa sidii Mareykankan arrintaasi garab uga siin lahayn oo Israa'iil ay u biritaari lahayd ayuu ku yiri hadalkiisa. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu bilaabayo xayiraad ka dhanaa dekedaha Iiraan laga bilaabo labada xilliga GMT maalinta Isniinta ah kadib markii ay fashilmeen wadahadallo ka dhacay Islamabad oo Pakistan kuwaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka u dhaxeeya dhinacyadan. dagaalka gobolka Bariga Dhexe ayaa bilowday 28 bishii February aynu ka soo gudubnay, iyadoo dhinacyadu ay la kulmeen dhibaatooyin xoog leh. dhinaca Iiraan oo kale waxay weysay mas'uuliyiintii ciidamada kuwa siyaasadda iyo waliba kumanaan shacaba, halka Mareykanka iyo Israa'iilna ay wajigabax ka qaadeen dagaalkaasi. wadahadallada labada dhinac u dhaxeeya oo ka dhacay gudaha wadankaasi
Pakistan ayaa dhinaca Mareykanka waxa hogaaminaya JD Vance madaxweyne ku-xigeenka wadankaasi iyo waliba halka dhinaca Iran uu hogaaminaya Mohammad Baqir Qalibaf oo ah afhayeenka baarlamanka wadanka la yiraahdo Iran. dhinaca kale haddii aan eego xiisad kale oo ka duwan midan dagaalka ayaa hadda ka aloosan gobolka bariga dhexe waxaana muuqanaya in dhinacyada Turkida iyo waliba dawladda nidaamka aan iraahdo Israa'iil hadda xiisadooda ay gaaraysa meeshii aad ogeydeen meel ka sii adag. goor dhaweyd waxaa hadlay aqalka madaxtooyada ee wadanka Turkiga kuwaasi oo aad moodo xiisada inay hoos u dhigayaan marka la eego qoraalada ka soo baxay. maanta qaar ka mid ah warbaahinta gobolka bariga dhexe ka waramaysa ayaa qoray in Israa'iil ay u arkayso marka Iran laga yimaado cadowga labaad oo ay wajahi doonto wadanka Turkiga. Turkiga la sheegay in uu isu diyaarinayo sida uu u qabsan lahaa dhulka Israa'iil ay hadda gacanta ku hayso oo gobolnimada Falastiiniyiinta uu dib u celin lahaa. hadalkan dambe waxa beeniyay madaxtooyada qaybta la dagaalanka marin habaabinta iyo wararka beenta ah ee warbaahinta lagu sii daayo. wargeyska Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay warar si weyn ugu faafay ayaa sheegay in madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan uu ku hanjabay in uu qabsanayo baa la yiri Israa'iil ama uu xoreynayo dhulka Falastiiniyiinta. arrintan ayaa timid xilli ay sii xoogeysanayso hadal haynta iyo afgarawaaga ka dhaxaloosan Turkiga iyo waliba Israa'iil. wararkaasi waa beenaya hadda leedahay qaybta la dagaalanka wararka aan jirin ee madaxtooyada Ankara. dawladda Turkiga ayaa si degdeg ah u beenisay wararkan. xarunta la dagaalanka marin habaabinta madaxtooyada Turkiga ayaa sheegaysa in hadallada la shaaciyay ee Erdogan aysan jirin isla markaana ay yihiin kuwa mala awaala oo aan sal iyo raad toona lahayn. Ankara iyo madaxweyne Erdogan waxa ay ku taagan yihiin ilaalinta qaanuunka caalamiga isxaq dhowrka dalalka kala madaxa bannaan inkastoo Israa'iil ay tilmaamaysa baa la yiri dhibaatooyin ay ka shaqeynayso. hadalladani waxay yimideen kadib markii wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran Hakan Fidan uu ku dhawaaqay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu doonayo inuu Turkiga ka dhiga cadow cusub kadib dalka la yiraahdo Iran. Israa'iil ayaan noolaan karin buu yiri iyadoo aan cadow lahayn. tanina waxay ahayd hadal rasmi ah oo muujinaya heerka xiisadda oo labada dhinac u dhaxaysa. dhinaca kale siyaasi lagu magacaabo Suleyman Soylu oo hadda ah xildhibaan jagooyin kala duwan soo qabtay ayaa qodiisa waxa uu leeyahay haddii dagaal uu bilowdo 3 ilaa 400,000 oo shicib ah ayaa u diyaarsan marka laga yimaado ciidamada qaranka inay Israa'iil wajahaan, taas oo ka dhigaysa baa la yiri in wax ka yar 5 saacadood uu Turkidu ku qabsado guud ahaanba nidaamka Israa'iil. dhinaca kale ururka xisbiga ayaa ku dhawaaqay goor dhow maanta inay gantaalaas qada uga dhigeen dhinaca Israa'iil dagaalkan sii soconaya awgii. xiisaddu waxay hadda u muuqataa in xalkeedu uusan dhoweyn, dhinacyaduna wali ay ku hanjabayaan midka kale in uu baacsan doono. ikhyaarta inala socota wararkii ugu dambeeyay xilligan gobolka bariga dhexe intaan ayaan ku eebiyaa waa Cabdicasiis Barrow oo idile soo dhawaada ku soo biiray YouTube-ka oo subscribe saara aad baad u mahadsantiin.